magaalada ceelafweyn sida u dambeysay qofkii arkay baa arkay ceelafweyn quruxdeedii qiimaheedii la waayey meydaan ka qatoobin qaxar waa kasta taagan qoontan aan la daweynin qiiqa aan dabin maaye duqaydii qabalayay dowladda ku qornayday kulan suugaaneedkan oo habeennimadii xalay ka qabsoomay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabiyay 6 abwaan oo hore ceelafweyn ugu tagay wacyigelinta xaaladda colaadeed ee u dhaxaysa labada beelood ee walaalaha ay halkaasi wada degaa kulan suugaaneedkan oo si gaar ah diiradda loogu saareeyay xaaladda ceelafweyn ayaa waxa ka soo qayb galay dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan Somaliland mujaahid boobe yuusuf ducaale xubno ka mid ah xildhibaanada guurtida Somaliland iyo xubno ka socday qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ugu horeyn mujaahid boobe yuusuf ducaale ayaa sheegay in xaaladda ceelafweyn imika aan xalkeedu ahayn meelaha laga baadhayo waxana uu sheegay inay xuduudaha ka talowday marka aan gacan qaado had ballaan ma gamuure geedku hays wada raacay gun hoosaan ku simaabuud maaha inay farac maanta arrinta faracyadeeda taataabana maaha waa inaynu gunteeda abbaarnaa maalintii ugu horreysay arrintaa la galay arrintaasi ceelafweyn bay taallay maalin labaadii arrintaa la galay arrintaasi ceelafweyn bay taallay maalin saddexaadii arrintaa la galay arrintaasi inay ceelafweyn tiille baa laga yaabaa aniga caqligayga yara gaabani wuxuu siinayaa maanta inaanay arrintaasi ceelafweyn hollin ee ay meelo badan taallo oo ay tahay inaynu sidaa ula dhaqanno haddii ay dadkaasi daaq iyo dhul iyo ceel iyo meel bacal lagu riday iyo waxay isku qabsadeen arrintii ma taallo waxa suuragal maanta inay xuduudaha Somaliland ka talowday markii kulan suugaaneedku soo dhamaaday ayaa waxa telefishinka Star la hadlay abwaan Cabdilaahi Xasan Gani oo kamid ahaa abwaanadii 6 ah ee xaaladda ceelafweyn kulligood isu xilqaamay wuxuuna uu sharaxay wixii indhahooda kula soo kulmeen intii ay ku sugnaayeen ceelafweyn iyo ceeri gaabo barnaamijkan aan isku nimid wuxuu daba socday arrin aanu baryahanba ku mashquulsanayn oo ahayd in muxuu ahaayay xal u helitaanka dhibaatada ka taagan ceelafweyn rabadaanta dhexdeedii baanu tagnay ceelafweyn iyo ceeri gaabo waxaanu tagnay dhowr iyo 10 habeen waxaanu islahayn marka hore dadka istilaya wacyi-geliya markaad ogaataan waxa la isku dilayo markaan meeshii tagnay waxaan ogaanay dhibaatada meesha taala inaanu u baahanay inaanu fahano beelihii isdilayaan wareysanay beelihii kale walaalaha in wada degayneen baan wareysanay culimadii baan wareysanay maamulkii gobolkaan wareysanay dumarkii baan wareysanay dhalinyaradii baan wareysanay waxaa noo soo baxday markaas in dhibaatada ceelafweyn ayna mushkiladu marba meel buu dabku ka baxayaa meesha uu dabku ka bilaabmay marka la damiyo ayuu dabku istaagi karaa ishu uu ka soo baxayso sumtu marka la qabto ayuu dawada imanaysaa marka ishaasi mar waxa weeyaan dadka isku dhacay baa loo kala taag waaya marna waxay wax u xumaadaan dadka isku dhacay sida loo dhexgalayo farsamadeeda ayaa xumaata marka waxa noo soo baxday in sidii loo dhexgalayay iyo sidii markasta loo galayay iyo heshiisyadii markasta la qorayay iyo in muxuu ahaayay qaabkii loo xalinayay inuu markasta qalad ku jiray abwaan Cabdiraxmaan Abees ayaa sheegay kaalinta abwaanadu ku leeyihiin xaaladaha ammaan ee dalka wuxuuna uu xusay in iyaga intooda ay guteen xaaladda ceelafweyn isagoo ka jawaabay sababaha kalifay inay socdaalkii bariga isu xilqaameen anagu reeraha uma gar qaadin waa taanaan xaq u lahayn maana reerkan baa ay reerkan ka gardarayay taasi waxaan ku simaynaa oo nu doonaynaa inay wax ka qabtaan cidii aan xogtan soo qaadnay wax la yaabo maaha markaad imika og tahay garashadeena iyo dadnimadeena inay hoos u dhacday intan dambe lana arko inta badan qof ciidamo ka dambayso ama danguud foodsaaro uga dhigta dangaara oo dabadeedna xagga dambe ka fashilmaa taasaa keenta in dadka laga wada duloobo ama laga shakiyo annagoo taa og ayaanu ku dhiiranay inaanu dadka tusno inay jiraan dad ku dhiiran kara abwaan Cabdilaahi Xasan Gani ayaa telefishinka Star wax ka weydiiyay sababta kulankan Hargeysa ugu qabteen ee ceelafweyn ugu qaban waayeen wuxuuna uu sheegay in tiraba 2 jeer isku dayeen inay halka ku qabtaan balse ay suuro gali weyday aad u fiican waxaanu tagnay ceeri gaabo tutan la mid ah waan ku qabanay waxaanu tagnay ceelafweyn tiraba 2 jeer baanu isku daynay inaanu la hadalno shacabka reer ceelafweyn
oonu ku nidhaahno maxaa yeelay intaanu sheegayna wacyigelinta aanu siino labada jeer buu inoo suurtagal weyday sababo aanan hadda jeclayn oo inay maxaa dhibka iyo rabshada sii badayso noqon karta oo hadda jeclayn ku nuxnuxsado ceebqado on baadhno ayaa keenay in laba jeer aanu tagno oo labadaba inoo suurtagal weydo oo dad soo ururino oo anu gacantayda ku shaqaysano oo dadkii haddana aanu meeshii ugu yimi weyno oo maxaa ammaankii dadka meesha maxaa iskugu yimaanay la ballan qaadi waayo oo ay maxaa aad u suurtagal wada inta taalkayga isku daynay way arinta ugu muhiimsan u tagnayba waxa wacyigelintu waxay qaybta ugu maamada dulmani kaydahatay abtigii dilow degma hooyada aad dooxdido aad ku diirsatide ma ku soo daraa iyo jarbaan ku dulaansano dabin lagu jabaayo hordaadsano faradu falaba shirka duugayo xubin dalab laba xagal daacayso xubna dalab laba xagal daacayo xista haadhan baa daalaa dhaco handa ciife baa daxalaystayo damac waalan baa aadmiga diro dhaga duuga baa dayin waanado xafiis daalina dab hulaaqayo sharci iyo dastuur dalqaba hal noqdaa deelqaafaye dowladnimo hadday wax daweyn jirto daadihin bulshada dirir baajinteed loo doortay oo dalka loo egmaday doorkeedii ugu dambeynna markii kulankaasi soo dhammaaday bulshadii ka soo qayb gashay ayaa telefishinka Star waxa uu weydiiyey waxyaabaha ay ka faa'iideen kulankan iyo arrimihii uga baxay intii uu socday horta ugu horeyn magacaygu Cabdiraxmaan Raagi Cismaan su'aasha aad weydiisay runtii waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo aan oran karo dhalinyarada halabuurka ee 60 aqoon-yahan waxa ay qabteen wax loo baahnaa oo dad badan ay ka gaabiyeen waxaan halkan baaq uga dirayaa iyagana beelaha ku dhexmartay dirirto deegaanka Ceelaf Weyn waxaan kaloo baaq u dirayaa xukuumadda Soomaaliland ee xilka haysa oo gadhooyinka Muuse Biixi Cabdi oo aan leeyahay arrinka kaalintii looga baahnaa ay ka qaadato kamay qaadan waa madal dareenkeeda iyo qiiradeeda iyo shucuurteeda gaarka wadato waa madal gabayaaga iyo maasayaanku ay ka qaateen kaalinta ay ku lahaayeen iyo waajibaadkii ka saaraa ummadooda waana baraarujinayaa waxaan farayaa shacab weynaha dawladda iyo dadka haysayaba in ay qaataan oo ay weeleeyaan baaqa gabayaaga iyo suugaanyahanka iyo maasayaanku ay u dirayeen ilaahayna hay naga yeelo kuwii weelay ee wax ku qaata ka faa'iidna hadana dhalinyarada waxyaabo badan nooga baxay oo ay kamid tahay nabadaynta in beelaha walaalaha ee dirirtu dhexmarayso loo gurmado aqal iyo fikir iyo maskax loogu gurmado dawladda ayaa gabtay xilkeedii oo waayo ahay in ay markasta ay xaliso ay tan dhex gasho oo haysta awoodii iyada dawladda suugaaneedkana ay soo bandhigeen 6 abwan ee hor u tagay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxay bulshada ku dhiirigeliyeen inay nabadda ilaaliyaan waxana ay sheegeen in kaalintii Ceelaf Weyn ay gabtay xukuumaddu ay doorkeedii ka gaabisay maxamed farax bilashiine telefishinka Star Hargeysa.